maanta ay taariikhdu tahay 5 December 2020 waxaan halkan sharaf weyn bay noo tahay anagoo ah hay'adda Sihanad Week iyo dumarkii kala duwanaa aan dhisnay ee ka ganacsan jiray suuqyada inaan soo booqano xafiiska guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka sharaf bay noo tahay sida wada ogsoonayba doorashooyinkii bay nagu soo socotaa maadaama doorashooyinkii nagu soo socotana dadkana waa inta badan waa codbixiyaasha maadaama codbixiyaal yihiin in waxa jirta dhawaan waxaan sameynay bayaan siyaasadeed bayaankaas siyaasadeed iyagaan soo wareysanay halkoodaan ugu tagnay xogtii waxaan weydiinay maxay u baahan tihiin tusaale ahaan saddexdan guddiyaha kala fadhiya ayaan u tagnay waana saddex daladood saddexda daladood waxay ka kooban yihiin hanaqaad shiraaqle iyo khayre marka waxaan soo sameynay maadaama doorashada nagu soo socoto cashuur bixiyaal weey maadaama cashuur bixiyaal yihiin waxay ka tirsan yihiin dadka inta codka ugu badan iyaga bixiya marka waxaan ugu talagalnay buugga aan qornay ee iyaga baahiyahooda ku salaysan bal inaanu la wadaagno asxaabta qaranka maanta markaa shiraf weyn bay noo tahay inaan idinimi oo halkan joogno idinkuna aan qaabasheen aad iyo aadna waan idinka mahadnaqaynaa saddexdan daladood waxay ka kooban yihiin 150 qof waxayna ka kooban yihiin 4 waaxood ee magaalada Hargeysa marka muddo badan baan gacanta ku soo haynay ka hay'adahan anagu aqoontooda aan kor soo qaadaynay bal inaan bulshada soo gaarsiinayaan doonaynay xuquuqda ay leeyihiin iyo xuquuqda lagu leeyahay ayaan bareynay dawladda hoose waan isku xidhnay waxaan uga soo qaadnay liisan ay ku ganacsadaan wasaaradda ganacsiga waan isku xidhnay waxaan uga soo qaadnay liisan ay ku ganacsadaan sidaa markay tahay waxayna soo food saartay doorashadii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka dadka ugu badan ee cashuurta bixiya weey dhammaan 6 gobol ee dalkana way joogaan marka bayaankooda siyaasadeed wuxuu ku qotamaa baahiyahooda gaarka ah xildhibaankay dooranayaan inay ku doortaan ugumaanaan tirigna reernimo laakiin waa inay ku doortaan muxuu qofkana noo qabanaya anigu bulshada halka wadan baan nahay codkii baan haynaa iyagana saasaan ku wada soconnaa marka miidkan waxaan ugu talagalnay bal saddex xusbi inaan marno buugiina aan soo bandhigno iyaguna ay idin sheegtaan kadibna aan ka wada shaqeyno oo cidii marka ay si fiican isku fahmaan ay codka siiyaan wax sahlan maaha 150 qof oo qoyskiiba 7 qoys qof yahay hadaynu qiyaasno waa 10,000 iyo wax ka badan laba xildhibaan way soo saari karaan magaalada gudaheeda dumarkan tacab badan baa naga soo galay 4 sano hawshan soo wadnay ugu yaraan in imika waxaan joognaa halkii ugu dambeysay inaanu maadaama dawladdeena isku xidhnay bulshadii rayidkeedna isku xidhay asxaabta qarankana isku xidhnay way waa codbixiyaan iyagu wax ma dooran karaan laba dooran karaan u jeeda laakiin waxba dooran karaan marka qofka saxda ah sida u doortaan baahiyahoodii baan u tagnay oo aan ka soo ururinay buug Soomaaliya fiican oo aan idin keeni doono hard copy ayaan iska sameynay Yusuf waan soo diray isagoo software marka horta kulanka maanta intaas u daaran yahay iyo isbarasho aad iyo aad baa mahadsantiin sida fiican ee quruxda badan ee noo soo dhaweyseen aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay iyagana waxaan rajeynayaa maadaama yihiin xisbigii ugu horeeyay aynu la kulanay ee asxaabta qarankii koowaad aynu la kulanay bal cid ay soo sharaxaan iyagana inaynu la eegno oo aynu codka siino aad iyo aadna mahadsantiin saddexda daladood ayaa iyaguna kelmadooda oran doona kadibna waan idinku soo wareejin ilaahay baa mahad leh ilaahay halkaas uu keenay baa horta mahad leh marka ku xigta waxaan u mahadnaqaynaa xisbiga ucud oo aan xafiiskiisa maanta soo booqanay si qurux badan noo qaabilay sababtana uu lahaa hay'adda sixa madaxa mashruuca Nuuruddin uu lahaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan nahay haween ka dhisan maxaan ku raadada dadka danyarta ah wadada hareeraheeda ku ganacsada waxaan ka koobanay saddex daladood waxay ay yihiin tiradoodu waa 150 haweena 150 ka haweenka iyo wixii guriga u hoos yaalay oo wadada hareeraheedii ku ganacsanaya bixiyana inta u badan ee codka ah weeyaan waxaan doonaynaa kol hadaan xafiiska ucud maanta fadhino in dadkana la ogaadaan hooyooyin badan oo dhibaataysan baa ku jira iskuulada ha fadhiyaan ha saameeyo xanuunkan maanta in haya COVID-19 ku guriyo badan baan dabka loo shidin marka waxaan aad u jecelahay xusbiyada inay hoos u eegan dadka danyarta ah intii faraabadneed hadalka waa la soo yiri waxaan ku soo biirinayaa in hoos loo ogaado wixii doorasho aanan ku xidhin maxaan ku raahdaa sida la isku dooranayo ama adduun la kala siisanay ee codkayga aan u bixino
oo aan ku bixinayno yaa wax noo qabanaya waa dad dan yara yaa wax u qabanaya. Assalaamu calaykum. halkan waxaan ka salaamayaa xafiiska maanta wucud ee noogu horeeya iyo maamulayaashooda gudoomiyaha garabka haweenka Yuusuf oo ah xogayaha warfaafinta. waxa weeye maanta horta igu horeysa halkaasoon weli xafiis wucud leeyahay weli maanimanin maantana hambalyaan leeyahay oonan ku faraxsanahay wax naga dhinaan bay ahayd. abaabkuna marba furmayaa abaabkii noogu horeeyay weeyaan ilaahay naguma hoogjiyo kii khayrkaana Allah nooga dhigo isbarasho wanaagsan oo isqaabishana Allah naga siiyo. anagu waxaan nahay ururka Shiraaqle waxaan nahay ururkaas ka kooban dadka bacdiyaalka ku ganacsada wadooyinka. waxaan na soo dhistay saxo Nuurudiin uu ka yahay maxamed gudoomiyaha muxuu ahayd maanta leestan ku dambeysay baan taaganahay aqoonna waanu leenahay aan wax ku dooran karo waxna ku diidi karno. aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida qiimaha leh sharafta leh noogu soo fadhiisatay ama noo aqbasheen haddaad tihiin xisbiga wucud. magacayga haddaan ku bilaabo Faadimo Yuusuf Ibraahim daladan ka socdaa waa hanaqaad. waxaan salaamayaa Sucaad oo garabka haweenka iyo Yuusuf iyo Sucaad. aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida qurux badan noo aqbasheen. halkan waxaan isugu nimi haween ka kooban 3 daladood oo dhistay hay'adda Siha. aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa gaar ahaan Nuurudiin oo ahaa ministerka hay'adda. aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa. waxaan halkan doonaynaa ama aan rabnaa inaan ku ogaano waxaan nahay horta muwaadin ku shaqaysta wadooyinka hareerahooda baadiyaana aan cidi u ogeyn dowladda Soomaaliya aan xeer u sameeynin aanay u sameeynin position fiican ay ku ganacsadaan aan looba arkin dad dhisanoo dad jira hasaatay ma sha Allah ilaahay baan mahad leeyahay hay'adaas baad noo soo shacsaartay maadaama dhulka ku dhajisnay laga soo fujisay. aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahayna wax khayr qabaan uga rajaynaa ilaahay ugu bedelo. waxaan leenahay insha Allah doorashooyinka ayaa lagu waqtiga doorashooyinka lagu jiraa. waxaan rabnaa inaanu ka helno xisbiyada ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaadaan cidii nagu soo bixi leeda baahiyahayaga ogaan lahayd ama dabooli lahayd ama nala fadhiisanayaan wax u sheegan lahayn hadhowna aan noo soo istaagi leedna la xisaabtami lahayn. waayo dadkaas aanu nahay xisaabta ugu badan waxaan bixinaa cashuurta ugu badan baan bixinaa Soomaaliland. hadii la eego ganacsatada Soomaaliland iyo dadka danyarta islaamiyada ku daadsan waxa weeyaan deemeena iska soo gaarayaan cashuurtooda ma jirto ninka bakhaarka haystaan 200 kuma laga qaadaa bish sanadkii anagana 700 kun oo shilin ayaa laga qaadaa sanadkii. farq deemeena hadana liisan ku leena ma jiro laba farq oo isku dhowna ma ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yar. marka waxaan doonayaa insha Allah inaan xisbiyada waxyaabo badan kala hadalno oo baahiyahayaga aad iyo aad baa dumarka gudoomiyaasha madaxda saddexda daladooda aad iyo aad baa mahadsan idinkuna aad iyo aad baa mahadsantiin. kelmadan doonayay inaan ku kordhiyo waxa weeyaan dumarkani waa cod bixiya doorashadiina way nagu soo socotaa. anagu kasi ahaan waxaan idin kala shaqeynaynaa haddaad tihiin xisbiga wucud dumarkaas sida ugu wada shaqeyn lahaydeen haddaad dad fiican soo xushaan ayaguna codka u siin lahaayeen iyaguna codkiina waa u diyaar. idinkuna waxaan idinka rabnaa sidii aan dadka uga wada shaqeyn lahayn albaabkuna waxaan idin rajeynayaa gudiyada madaxdooda ina uu noqdo mid idin furan waa xusbi qaran oo ummadda oo dhan u furan idinkuna ummadda ka mid tihiin. marka ha isku qariibinina gudoomiyaha garabka haweenka la soo xiriir kartaa qof kasta oo uga baahan tihiin Yuusuf la soo xiriir kartaan anaguna wixii ka caawin karnaa waan ka caawin karnaa. iyaguna maanta waxay u baahan yihiin xildhibaanadooda la soo baxaan waxay ku soo baxayaan waa codkiina idinkuna waxay u baahan tihiin baahiyihiina cid ka jawaab. marka hadday cid fiican oo qurux badan soo dhigaan inaga ballanteena waxa weeyaan inaynu siino dadka wanaagsan ee codka siina taana waynu bala qaadanaa idinkana isku soo wareejinaya aad iyo aad baa mahadsantihiin. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad soo booqataan oo idin qaabilo farxad bay noo tahay runtii xisbiga oo dhan gaar ahaan aniga oo haweenkii metelaya aad baan ugu faraxsanahay inaan idin arko. runtii waxay ogtihiin inay baahiyo gaarihi oo waliba runtii la taaban karo
ay dumarka maxay ahayd ay qabaan especially de dumarka bacadka fadhiya ama de hooyada shaqaysataba ka haween ahaan waan ognahay waxaan ognahay dhibaatadooda waxaan ognahay yani waxa ku dhacaya oo dhan in cashuurta laga qaadaan ognahay inay awlaad soo saarayaan baan ogno ilaa heer jaamacadeed ay gaarsiinayaan iyadoo halkaa fadhido ama tamaandho iibinaysa ama caano iibinaysa adigu wadaafa waxa ay qabanayso haddana inay heer jaamacadeed gaarsiinayso hooyadaa tacabsan waan ognahay in cashuur laga qaadaan ognahay inaanay haddana haysanin daryeelkeedii ay dee ku lahayd dowladda oo aanay xataa hadh haysan baan ognahay inaanay xataa 6da subaxnimo markay soo baxdo ilaa iyo 6da galabnimo intay gaaraysa xataa inaanay haysan xamaam ayaan dareensanay iyadoo umulo habeen kaliya umulanada ama 2 habeen umulanada inay soo baxayso oo haddana ilmihii yaraa ay sometimes kale intay ku dhexrido oo ilmihii yaraa halkan u yaala ayaanu dareensanay marka dhibaatooyin badan oo yaala horta anagu wali kumaanaan guuleysan talada dalka laakiin hadda waxaanu ballan idinka qaadaynaa inaan musharaxiinta aan soo xulayno aan hortiina keeno oo wax dhaba oo xaqiiqo ah oo idinkula ballamaan idinkuna hoosta ka xariiqdaan oo wixii qofkii adantiina ka dhex aragtaan aad berritole sida caalamka ula xisaabtantaan oo tiraahdaan haddaad xataa maanta codka siisaan aad tiraahaan shalay saasaasaasaat laakiin midun baan idinka digaya inaydan qabiil aanaydan ku dooran inaanaydan ku dooranin lacag yar oo laydinku iibsado waayo annagu xisbi baan nahay qofkii waanu soo saaraynaa markaanu siifigiisii iyo codsigiisii arag laakiin bulshadii baan horkeenaynaa bulshadii waxay odhanaya waxaan qabanaya marka ayaanay idin noqonin hadaladiisani mid idin dhaafa ha noqdaan mid hoosta ka xariiqdaan ha noqdaan mid baahiyihiina ka jawaabaya marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay الملأنا ويحة هذا كتم يدوين وضع سعندنا ويحي باهية جارة يعني أدوني سن إن إذن كعاوين دبعتها إذن كي مادنا مرول بوحنا ودلنا قاع مفرم كسر دواده marka koowaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadle isugu kan keenay madashan mar labaadka xisbi ahaan waxaan ku faraxsanahay inaa maaragtay maanta xafiiskayga timaadaan idinkoo dan guud u socda maydaan dandan gaara u soconin isla markaana uu socdo dan inaga wada dhaxaysa sidii magaalada Hargeysa u noqon lahayd magaalo isla xisaabtanta dadkeedii hesha qof waliba xuquuqdiisa helo way Hargeysa imika ku koobantii goboladii kale iyadana waan rajeynayaa inay saan lafteedu ay naga si hay naga shaqeyn doonto marka mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Siha Network oo ka shaqeysay hawshan tacab badan iyo waqti badan bay u baahan tahay aad baan iyadana ku dhiirigelinayay inay maaragtay arrimaha bulshada ka shaqeynayaan inay maaragtay sii wadaan oo aanay gobolka Maroodijeex ku ekaanay gobolada kalena ay gaaraan maanta waxaan horta ka jeclaan lahaa idinku musharax wata idinku musharax wato yiraahdo wareere annagu waan iska soo xulayo hadaan daladahaanahay inantaasaan idin wadnaa ama ninkaasaan idin wadnaa waana ballan inaan dooranay wixii heshiis iyo wixii kalena annaga soo galay dowreer qofkii anagu naga yimi taasaan ka jeclay horta wicid baan idin sheegayaa wicid inaad gudoomiye aragteen mooyaane in miidiyaha mar walba wuxuu raay insha Allah ta'ala dad wanaagsan baan u keenaynaa nasiib wanaag marka inta la xanto ee golayaasha deegaanka ku jirta isaga keenay imika maayarka Gabiley maayarka Berbera maayarka Laascaanood intuba cid bay ka soo baxay maayarka xigeenka Boorame iyo kan Hargeysa marka de kulay rag saaqadina waa nagu jiraan rag dadkooda wuxuu qabtayna waa jiraan dadku isku dhex jiraan rag badan oo aan waxba qaban baa jira laakiin labada nin ee aad loo jirta waa maayarka Berbera iyo ka Gabiley berigii waan xasuustaa maalintu maayar Maxamed Amin noo yimid keligii noo yimid wuxuu yiri waxaad moodaa dadka horta qofka ay ku jirto dareenka maartay wax qabashaday qabiilkii waxaynu ka madax banaayeen muddo wuxuu yiraahdo qabiilkayga nin ba isku raacay
aniga qabiilkayga waa la iga tegay oo nin macallin ahay oo reerkayga nin buu isku raacay laakiin aniga waxay wataa reer Gabiley oo dhan magaalada Gabiley dhalinyaradeeda iyo haweenkeeda iyo wixii dadkina ay la soo arkay waan la fadhiyay gudoomiyaha markuu caynka ku lahaa gudoomiyaha wuxuu ku yiri anigu taasaan jecelahay inaan qofka qabiil lagu dooro ma jecelahay haddaad hal cod helayso kaaga haddaad helayso waan ku sharaxay hadda codkuna beriga xisbigu xitaa wuxuu ku dhacay in qofku reer wato Faysal kamuu fikireen xitaa xisbiga dhicidiisa ninka yare dhalinyarada ah xitaa cidilama socon markuu noo yimid kirigi buu ahaa Mansoor gudoomiyaha kula kulmay xafiiskan isla nimid halkan lix cisho kadib xafladii qabsaday waan israacnay Gabiley oo dhan baan soo dhaweysay laakiin dareenka ku jira wuxuu ahaa inuu dadkiisa iyo bulshadiisa u shaqeeyo wuxuu ka codbatay kuwa reeruhu wateen ayuu ka codbatay kuwa reeruhu wateen ayuu ka codbatay oo maartay nin kasta xad baabo habaan falay tiina waka ka dhameeyay markii hore xubin golaha wuxuu noqday deegaanka laba jeer baa uu isku dayay inuu maayar noqdo waa loo diiday laakiin qofka hamigiisa macnuu ka guuleysan waayay markii saddexaad buu ku guuleystay inuu maayar noqdo waa ka dadkiisii markaa maaragtay wuxuu qabtay imika waxay leeyihiin dadkii waxay ka codsanayaan inuu ku noqdo isna wuxuu leeyahay waariga daayay waxay ka codsanayaan inuu dib ugu soo noqdo markaa qofka de markuu ilaahay baa baadilkiisa waxa uu qarsoonaga laakiin markuu de ku raado waxa san qabanay adu deedi markaad ku doorato waxa ayada way kala leexatay isaga ilaahiisa inagu daahirkiisa waxa la yiri diinteenuna qofka waxaad xukuntaa baa la yiri daahirkiisa baadilkiisa waxa calooshiisa ku xukumayaa xukumayna adu qaayib matii waxaan idin ballan qaadaynaa anagu xisbi ahaan warta arrimaha bulshada aad baan uga hadalnaa xisbiga kaliya arrimaha bulshada ka hadlaanahay mar baa jirta xitaa daladaan u qaybinay hooyooyinka muuska iyo ku iibiyo wadooyinka dhinaciisa dalado imaka marka iyaga la taabtay ama miisaskooda laga burburinayo ama cidda koobaad ay soo cawda waa anaga hooyooyinka khudaarta ku haysta imaka gobonimo baan dhawado anaga inoo yimaadeen dhawaan kaale naga gaar iyagoo cagafta ku jirtaan tagno warar ka joojiyeen kaarada ku dhacday waan isku dayeen laba inaan dad fiican soo saarno waxaan sameynay saddex kriteeriya ta koowaad waxaan sameynay gobolkii baan nodhay maamulka gobolku dad wanaagsan soo xulo mar labaadkiina guddi baan u saarnay 7 qof oo si wanaagsanigi su'aad beenan ku jirnaan maanay 7 guddi 9 qof oo 6 gobolba ka kooban ayaan ku jirnay guddidaas waxay eegaysaa gobolku dadkii soo gudbiyeen ma yihiin dadkii waxaan eegaynaa كو هرت واحد كلام دم هاي الدم بيان عبادة سقف كون قف هلو عبادة إن إلهي كحوي سبحانه وتعالى ويمان لي هيدي قف قطوع عبادة استدي وردي يمان لي قياس تسمينا قرنين مرات كحوين وأقول لي هاي أنا قال عقته بريورتي نوما نقف كل عقل هذا واحد بريورتي نوصل نسمش مرة صدحاتك بالشدة وكل حجر السلوكية سمعنا كل حليه مسوى دينين ما عرفت بالشدة حمته أضو إلا عشان يلباتن قضوا النوعاس أيام كسر حرنا قف حكمي وهو بالشدة سحوا قالوا متبالغ يا أبا أنتوا سوسو شرحوا وحنو يسوس شرحي بين قرنية كورنية وحن كينية اعتراف بين كينية سيدا كوين دور النوكا اعتراف كده هرجيس الله دريزك مع اعتراف كده أرميها بالشدة الله إنه قف كورته وحن فهمسية وحن لا دورنا يقف مفهمسية هدو فهمسية ها هدانو فهمسنين تي وحوي وقت بقى قاعدنا ساين ماركتي أضو الشروط إنه عاصم ويجينا هدو لها إلى هذا صدق حسبنا دميت كم يدون بان لكن وحرتينا يعني لا ترتنا يعني نقدر ونحسن كأنه يجي كفي عنه أيان رتينا إن هدو لها سان هربت ده مرة كقارو كفي عنه waxaan idin ballan qaadaynaa xisbi ahaan inaanu welibana idin kala shaqeyno inaanu waxa Hargeysa aanu ka sharaxayna 17 golaha deegaanka iyo 20 golaha wakiilada
gobolka Maroodijeex waa 20 deegaankana waa 7 marka Maroodijeex 20 xildhibaan la leeyahay Gabiile iyo Balgoole iyo waxa nagu jira Salaxle iyo deegaanooyinka gole deegaanka laakiin deegaan markay noqoto 17 Hargeysa kaliya weey waliba waxaan rajeynayaa maayarkuna cid noqon doono insha Allah hadii Ilaahay raaco waayo waxaad garanaysaa nimanka imika doonaya inay ku tartamaan maayarnimada nin waliba wuxuu leeyahay war maayarku malaa cid buu ka soo baxaya anaga noo yimaadeen oo ilaahay war cid buu ka soo baxaya cudaan tagan marka waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idin hor keeno inaan imtixaantaan idinku imtixaan ka qaataan cid marka hubbigiinu idin siiyo inay ku qanacdaan inuu yahay ka doonayseen kan ama inanta doonayseen inay tan tahay inaan idin hor keeno inaan imtixaan ka qaataan inaan maaragtay oo waliba anagu haddaan doonno idin soo kala xulo oo idinku badanaysaa waqti ma hayno inta priority-ga siinaysan inaan waliba anagu khalad ha nagu noqoto dad xisbiga waxa ku qoran inaan loo laakiin seen inay idinku imtixaan maaragtay ku imtixaantaan xisbiyada kalena la imtixaantaan xisbiyada kalena la eegtaan waxaan diyaar u nahay haddii naga wanaagsanaadaan inaanu haneyno oo asiisaan codka inuu haneyno imika anagu si soo qirayna iyaga qolada intaana doorashada begal ayaanu ninay ku wada qanacsan yihiin saddexda xisbi inuu maayar noqdo aan rajaynayna inuu cid ka yimaado Ilaahay marka cidii ku qanacdaan xisbi ahaan gooni waa wareysan kartaan liis baan idin dhiibi karnaa oo soo eegi kartaan oo ka xulan kartaan oo oran kartaan hebel anaga iyo heblaayahana loogu yeero saa imtixaan u qaadaan han diyaar u nahay inay heshiis cad la gashaan heshiiska in gudoomiyaha xisbiguna fadhiyo xaflad qabsano halka ku dhaarsano nidaano hadii aad soo boon ku soo saaraynaa maxaad noo ballan qaada halka noogu qor saddexda dalood shiraaqle iyo khayre iyo hanaqaad waxaad u qabanaysay marka halka noogu qor markaad soo baxdo anagu ku dooranayna noo qor halka dabeedna halka ku qoro heshiiska gudoomiyaha xisbiga markaad oo hadhow hangool ula geli doono haduu ka baxo hangool ula geli doona isagoo idinkeedii hogaaminaya heshiiska aad hablaha weenkan la gashay waa kana meey maxaad ka qabatay taasaan idin ballan qaadaynaa halka ku imtixaan heshiiskana Soomaaliya oo dheynalo ogaato saddexda urur noocaas waxay heshiis la galeen hebel hadday way soo saarayaan markay soo saaraan inuu baahiyahooda noocaas aanay bulshada la qabin bulshada ka xitaa arintan dhiirgelin bay noo tahay wax laga yaabaa dad kale inay xoogsatada inay ku dayato kuwa ay bacdlayaashu inay ku daydaan in bulshadu si isugu xidhan in bulsho waliba maanta ay waxa laga yaabaa marka dambe hadii arintiina hirgelisaan in laga baxo qabiilkan bulsho waliba ninkeeda idinkuna doorka xiga in ay idinku wadata mid aan noo keentaan idinku xildhibaanadiina wata inaan noo keeni doontaan hadii Ilaahay yiraahdo waxaan gabagabadii kaga baxaya anaga awoodaydu waxa weeye inta ka hadhay doorashada baahiyihiina kale inaan ku hadalno dhibaatada haysata anaga awoodaydu waa hadal iyo inaanu indhaha xukuumadda ku soo jeedino haddii maanta microphone aan qaato tagaalkii wax laga yaabaa berri kuwii hawsha lahayn idin yimaadaan yiraahdaan nimankii shalay idin yimid beenaalayaal bay ahaayeen anaga wax idin qabanayna gobonimo waxa ka dhacday haweenkiiba halkan inoogu yimaadeen waxay meesha laga raraya suuqi dad waxa laga iibiyay dumar shaar iyo niman tijaare meesha laga raraya noo kaaliyo noo soo gurbo nagala hadla qolaan dad la iska buuhantinta laga burburiyo dacwad baan ku furayna maxkamadan ku furayna dacwad wasaaradda arrimaha gudaha uu ugu qornay arinta inaan la sameyn karin wasaaradda amar bixiso tiriha la joojiyo dabeedna maayarka oo qoladii golaha deegaanku inantii bay qabteen intii bay ku yiraahdeen adiga laba baloor baan ku siinaynaa oo halkii dadka laga yeeyay waxa ka galay dadka kale adoo labada qaabo nimankii shalay ku yidna waxa tiraahdaa way waxaanu sheegay way aftoobeen miiriye bay nagala hadasho
waxay tiri qoladii halkan shalay daraa toola timid horta dhaliili maayo laakiin waxaan u sheegayaa arrintii waa la saxay arrintii halkaa way isbarqabatay nuur iyagina way kaga baxday iyagii kuuriday iyagii waxaa tiraahdaa waxay ahaayeen niman ijaawareeriyey way kaga baxday waxay tiri xisbigii shalay toola halkan noogu yimid ee uu Ramaax Cali haysto hogaaminayay iyo Yuusuf Kayse iyo Jiir Cali Madoobe waxaan idin sheegayaa hawshaydii waa la saxay haddama ay oran hawshii dumarka la saxay aniga hawshaydii waa la saxay waana mahadsantihiin golaha deegaanka iyo maayarkana aad iyo aad baan u dhunkanayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hawshaydii mar haddii hawshii sidii ku loo iyadin baa laba bilood haddana qoladii kale oo ordaysaa noota dadna waxaan niri oo adigana haddii mid ka mid ah biri tolo baroor lagu siiyo maxaad yeelaysaa hadna inteedu baa lagu siin doonaa marka inta badan waxay sameeyaan way ka soo jawaabaan oo haday doonaan sifa khaldan baa kaga jawaabaan marka daliishooda loo sheego waxana bulshadu mas'uulka iyada ka adag waan in gaari doonaa waqtiyada kamid bulshadu iyada ka adag oo la xisaabtamo ninkan inaga xilka u dhiibin ma xil isugu leeyama cashuurta adigu aad bixiso ay mushaarka ka qaata ninkan isagu la xisaabtamo in bal inaga ka baqayna ninkan inuu qabsan lahayn ee oran war maxaad noo qabatay ayanu inaga ka baqayna waynu gaari doonaa marka sidaas oo kale isugu xirantaan tan oo urasda oo adag noqotaan idinka ka adkaan doon xisbiyada ka adkaan doontaan orantoona u cuday maxaa noo haysaan kulmiyo maxaa noo haysaa wadaniga maxaa noo haysaa wasiirka arrimaha gudaha maxaa bulshada u haysaa waqtiyada kamid waynu gaari doonaa laakiin bilowgeedii ka hayay marka wadadeedii bilowgeedu waa weyn qabyaalada ka baxdo inaynu bulsho waliba isku dareen noqono oo waxaad ka shaqeysa cid kala shaqeynaysa wax ku adiga waxaad ka shaqeyso aniga imika waxa ay inta wuxuu wala jirta waxay oo daan isku fikirna idinkana waxa isku fikirtiin inta ay dantu idin midaysay ayaa maartay waan ku dheereeyay halka waan jecelahay inaan in badan maartay la hadlo oo aan mar waayo waxa diyaanana waan tabeeni waxaan nagu tabeeni weey marka niga raalaha hadaan ku dheereeyay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa hay'adda iyo maamulka daladaha saddex daladoodba waxaan leeyahay wadadii ugu wanaagsanayd baa haysa wadadii ugu wanaagsanayd qolada siyaasiyiinteedu iyaga dadka xumeeya cadow badan baa yeelan doonta oo ay ugu horeeyaan kuwa imaka kala dooranaysa reebel bal uu soo gali doona oo oran doona nacasay inaan keenni baa cid la taagan markaas dalad iyo ka hadlaysa shiraaqle iyo waxayna garanay iyo hadda waa nin dantiisa nagu kacsanayo oo aan Britoria ku aqoon adiga imika waxa ku yaqaana ka magaca kuugu yimid saddexda dalood magacooda ka kuugu yimid ee aan qabiil kuugu yimid ee aad la xisaabtami karayso ee aad ka oran karayso ilaa ninna gurigiisa shaah ka cabimaysa midba gurigiisa roog ku dhigaya adiga ka wax ku ahay waxa weeye ka inta meel la tagto aad la xisaabtamaysa qoraalka ku qoran ee bari ka maalin leeyahay maxaad ka qabatay qoraalkaygan maxaad ka qabatay kaas adiga wax ku ah marka waxaan leeyahay isku xubnaada yaa lidii kala jajabin sida imka isku xubnaada sharcigiina dhigateen adkaysta sharcigi baa leedihiin oo deegaamaartay urur ku tiin sharcigiina adkeen hay'adiinaasna wixii tala ahee iyo tusaale ahee maaragtay iyada dib ugu noqdo weydiiya marka waxaan gabagabadii kaga baxaya anaga albaabkaygu weydiin furan yahay anytime waan ugu soo noqon karaysaan options baan idin siinaynaa haddaan liiskii golaha deegaanka naga rabtaan horta weli final baanaan samayn weli xulashadii baan ku jirnaa waxaan imika meesha wada marayo dhan waa golayaashii waa nimankii tartamayay iyo cid u socota weli waxay maraysaa darajadii koowaad ee gobolka markay soo gaadho gudideeda ee aanu finalka soo saarno 20 qof ee 17 qof ayaanu hay'adda iyo la soo wadaagaynaa email ku soo diraynaa 17 ka qof 17 qof nin walba uu soo xayisiinaya wuxuu soo diri doonaa video yar oo kaga hadlayo wax qabadkiisa wuxuu soo diri doonaa in xayisiisiyo sticker iyo waxyaabo isku xayisiinayo dabeedna 17 ka cidii ah markaa idinku markaa shirtaan cid aad tirahdaan liiskan idin soo gudbinaa hebel ha noogu yeeray iyo heblaay noogu yeeray ayaan idin soo gudbinaa waan idin hor keenayna waa imtixaami doontaan markaa imtixaamtaan haddaad tirahdaan 17 kan waan idinku yeeraynaa waa imtixaami kartaa
dabeedna markaasaynu kala saarayna duleela